waayahay kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa in idin la wadaago xogta iyo wararkii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinka culus ee Axmed Madoobe maanta uu qaaday iyo qorshaha culus ee hadda ka soo ifbaxaya maamulka gobolka Gedo iyadoo dhawaan maalmihii la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya ku daabuleysay ciidamo hor leh oo ayna ka dejinaysay garoonka magaalada Garbaharre iyo waliba soo kale Baardheere oo ah gobolka Gedo halkaasi oona markaasi gudoomiye shimbir gudoomiye ka ahaa ama gudoomiyaha gobolka ka ahaa Axmed Madoobe ayaa tallaabo culus qaaday magacaabis cusubna waa uu sameeyay sidoo kalena qoraal dheer ayuu soo saaray kulan hadlayo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo walibana digniin ee la socoto hadaba maxay tahay waqtigan ama markaas in mar kale Axmed Madoobe tallaabada noocan oo kale uu soo muujiyo xogta seerabaan halka kugu wadaago soo dhaw daawaday markii ugu horeysa hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibadeena sida maalinlaha wararkan halkan ugu la socdo na soo follow garee oo ka mid noqo saaxiibadeena si like waa markaas like garee sina share garee si markaas meel dheer u gaaro muuqaalka aragtidaada adigu aad isleedahayna ku cabir barta markaasi ee wax lagu qoray ee markaasi fariimaha kala duwan lagu baahiyo mahsanidin soo dhawaad madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa qaaday tallaabo culus oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya isagoo oona gudoomiyihii hore ee markaasi meesha fadhiyayna markaasi xilka ka qaaday ama xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiye cusubna oo u magacaabay gobolka Gedo si markaasi tallaabo culus loogu qaado dowladda federaalka Soomaaliya ee markaasi mudooyinka ugu markaasi ciidamo fara badan ee ku dejinaysay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaana markaasi qaatay tallaabo culus oo xoog leh markaasi lana xiriirta gobolka Gedo oo markale markaasi laga dareemaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo walibana markaasi dagaal markaas inuu ka dhax qarxi karo ay dhici karto Axmed Madoobe ayaana maamul cusub u magacaabay gobolka Gedo iyadoona markaasi kadib waa markaasi digreeto madaxweyne markaasi lagu soo saaray si uu markaasi ugu hortago dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay ka wada dowladda federaalka Soomaaliya Garbaharre Baardheere iyo waliba soo kale magaalooyin kale ee mudooyinka ugu dambeeyay sida weyn ay u gaarayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo ayaana markaasi waxa loo magacaabay Maxamed Xasan waa markaasi Maxamed Xuseen Isxaaq oo markaasi lagu bedelay gudoomiyihii hore ee shimbir oo haddana ahaa gudoomiyaha gobolka balse markaasi ka horyimi ama markaasi tallaabada Axmed Madoobe si weyn u qaadacay kadibna dowladda saf dheer ula galay iyadoona Axmed Madoobe iyo khilaafka culus ee dowladda federaalka Soomaaliya cirka isku sii shareeray mudooyinkii ugu dambeeyay dowladda ayaana sidoo kale waxa markaasi la soo warinayaa in markaasi saanad military ka dejinayso deegaanada Baardheere ee gobolkaasi taasi oona markaasi ay gaarsiinayay qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si markaasi gacan ku haynta deegaanada dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ugu dhigto taasi oo waqtigan la joogayna mar kale u muuqato inay kicin karto xiisad colaadeed Axmed Madoobe ayaana wada qorshe ku aadan sidii markaasi ugu hortagi lahaa tallaabo kasta oo ay dowladdu rabto ama inay u qaado ay qorsheynaydo ay isagu yoolkiisa ay tahay inuu si weyn ugu hortago misana markaasi u qaado oo qorshaha culus ee dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay kuna rabto inay markaasi kula wareegto deegaanada gobolka Gedo oo mudooyinka ugu dambeeyay ciidamo aad u fara badan halkaas ka dejinaysay waxaana sidoo kale Axmed Madoobe uu sheegay qoraalkiisana uu ku daray uu ku tilmaamay in ay tahay cawaaqib xumo hadii dowladda Tiras Kamboni ka dhacday ay midana ay markaasi ku kadsoonto waxay ka soo gaara ama dhibaato ay ka timaadayna ay culeyskeeda ugu badan dowladda ay qaadi doonto ayuuna ku yiri qoraalka waxaana sidoo kale lagu sheegay in markaasi Axmed Madoobe gobolka Gedo iyo waliba soo kale dhammaan Jubbaland deegaanadeeda aanan markaasi cidna loo hoos fariisanaynin qof kale aan wax laga weydin laakiin qorshe ugu weyn ee uu rabo ay tahay in wax kasta ee gobolkaasi ee isaga ay hoos tagta ama markaasi uu isaga laga xal wareysto waqtigan la joogayna dowladda ayaana tallaabooyin ka dhan ah ka wada dhankaasi iyadoo qorshe uu yahay in markaasi gacan ku haynta sida weyn deegaanadaasi mar kale ay dowladdu ay maamuli doonto sidee kula tahay adigu maxaad se ku talin lahayd tallaabooyinka culus ee dowladda ay qaadayso iyo qorshaha Axmed Madoobe oo isna markaasi si ballaaranaya aragtida qaybta hoose faalada commentiga
nagula wadaag sidoo kale si share garee mar kalena waan kaa dalbanin inaad nagu soo biirto na soo follow garado ka mid noqoto saaxiibadeena mahadsanidin